waafaqsan baahida ka taagan suuqa shaqa ee dalkeen taasina laba nooc weey waxa aan kolba yani baahidu sida ay tahay kolba noloshu sida ay tahay kolba dadka shaqaysiinayay waxa ay ku socdaan haday tahay warshado haddii ay tahay informatic haddii ay tahay yani waxyaalo badan waxa aan samaynay waxa weeyaan waa ogtihiinoo awal waxaa jiri jiray CET waxa la odhan jiray kabacdi waxaa yimiday lab baa la odhan jiray laabkii dabadii waxaa yimiday league soo maha maantana waxaa jira lycée technique wax la yidhaahdo waxa aan nidhi collège yani d'enseignement technique moyen baa la yidhi kolkaa waxaan ka furnay magaaladan Djibouti iyo Belbela iyo maxaan ku idhahdaay gobolada kolleejyadaasi oo sanadkani isku bedelaya haddii alla yidhaahdo lycée technique makiinadahoogii leh ardaydu marka ay wixii teoriya dhigatana waa inay warshadayntii ay dhigato oo sanadkan 2011 ayaan 5 lycée technique laga furi doonaa waddanka jaamacaddu waxa ay abuurtaa kolka ay la shirto dadka shaqaalaynaya in ay baccalaureaga dabadii formation 2 sanadooda inay bixiso tourismiga way samaysay maxaan ku idhahdaayey maintenance industrielle way samaysay maxaan ku idhahdaayey informatique way samaysay allahuma salli calaa maxamed iminka waxaa lagu jiraa kolba waxa ay dadweynuhu ama shaqaaluhu doonayaan ya topografiga lagu jiraa statistiga lagu jiraa oo formation 2 sanadooda oo dadkii u diyaarinaysa inay shaqadii galaan kolka ay dhowr sanadood la wado ee la arko inay shaqadii istaagayso yani inay dadkii caruurtii ku dhicin yani shaqo la'aan ayaa la xidhaa oo ka cusub ee dalabku ka imanayo shaqaalaha dadkan shaqaalaynaya ayaa loo furaa madaxweyne maskax caafimaad qabta jir caafimaad qabay ku jirtaa caafimaadka haddaan usoo noqon allahu akbar wax badan baad ka qabatay runtii wax badan baa laga qabtay hase yeeshee wuxuu iska noqdo caafimaadka ayaa lacag leh waa sidii marka astaqfirullah alazim yaa lacag leh caafimaadku gaaladu waxay tiraahdaa qeyb uu leeyahay ya c'est un prix c'est un coût ça n'a pas de prix mais c'est un coût bay tiraahdaa soo maha dowladdu waxaa lagu ajburay africa ama la siiyey yool kale kaa tacliinta uun la mida in dowlad waliba ay budjeegayga 15% ay u goyso caafimaadka wadannada ugu yar ama ugu tirada yar ee 15kii jooga imika ayaan nahay iyadoona 2015kii la gaadhay budjeegeenu 4 goor buu biiray caafimaadka sariiraheennu 3 jeer bay biireen 3 hosbitaal baan samaynay cusub oo daaralxanaan leh oo belbele leh oo 4 district oo dhan waxaan ka samaynay de centre hospitalier ma garan waxa aan furnay dhul kaliyaha lagu safeeyo bilaa belbela ilaa Djibouti kanseerka meel loo haweenka u loogu talagalay ayaan ka furnay belbela waxa aan joognaa waxaan abuurnay dad waxa la sameey jiray 25 caruura ayaa centre de formation loo furi jiray sanadkiiba 150 baa imika ka soo baxda 150 waxa dadka radio hadday tahay scanner hadday tahay
iyo eeraam hadday tahay wixii dalka looga baxayey oo dhan halkan baa lagu haya waxaan leenahay yacni lacag haddii qiimaha laga qaadayo dadka serviiska la qabanayo ee la hayo in yarun baa isdaweyn lahayd in yaroo qudhaad miyiga meesha ugu dambeeya waxaan u furnay waxa la yidhaahdo la mutuel waxay bixiyaan mataqaana 100 faran bishii 100kaa farani iyagaa maamusha iyagaa wax ku iibsada su-aal inaad weydiisaan dadkaas ayaa qurux badnaan lahayd inaan la baadho oo lacag laga qaato iyo inay dawladdu ku caydhowday yah waxaan u samaynay dadka miyiga baabuuro kamyoonno u wareega oo la yidhaahdo mobile bahladani unité mobile ayaanu samayn oo dhakhtarkii ku dhex jiro oo umulisadii ku dhex jirto oo miyiga meel walba mari kara distriga dakhil mid buu iska leeyahay ka cali sabiix mid buu iska leeyahay ka ubakh mid buu iska leeyahay ka tajuurada mid buu iska leeyahay kan cartaadna mid buu iska leeyahay waxa ay ka shaqeeyaani dadka aanan soo gaari karin walaa tuulo yar walaa yani meesha yani magaalo madaxda gobolka ee reer baadiyaha ah in loogu tago meesha ay joogaan wax lagu siiyo haddaa sii raacotaa dadka hantidoodu yar tahay saboolnimadu waxa ay ka mid tahay raanta arrimaha aad mudnaanta koowaad aad siiso waxaad samaysay sanduuqyo dadka taagta yar la gargaara wasaaradda lagu soo biiriyey la yidhaha solidarité waxa oo dhan maxay saameyn ku yeelatay noloshii dadka wax badan bay ku yeelatay oo dadka wixii barnaamijka INDS la yidhaahdo oo Initiative Nationale pour le Développement Social 2007 ayaan dejinay 2008 ayuu dhaqaaqay 3 ilaa 4 milyaar oo faran baa gashay halkaas waxa ay aan abuurnay caruurta descolariseega la yidhaahdo ee shaqadii iskoolkii ka tegay inay dib u soo qaadaan hortaba barnaamij caynkaasa bay leeyihiin oo ay bekuul geeye ah raxmo geeye ah inta aan ay u samaynayaan centre de formationno cusub oo laga samaynayo belbela inta la dhisayo ayagaa ka bixiya wax alla wixii kharash loo baahan yahay oo waxa ay abuureen in ay sameeyaan dhul suuq dadka ay dadka aanan aqallo badan karaysan karayn aqallada qaaliga aan karaysan karayn inaa loo sameeyo meelo ay wax ku iibshaan dadkaasi waxaa dhisa entrepreneuro dhallinyaro ah oo aanan karaynin ayagu inay maarsheeyada galaan ayaa shaqooyinkaa qaata oo la siiya oonan garantii laga doonin waxa ay aqallada dadka hayntoodu ka yar tahay ee saboolka ah eenan kooraanka lahayn in ay u geliyaan kooraanka belbela dad badan ayaa loo geliyay oo wax laga qaaday habar yaaraatay lacagtii ay ededee doonaysay oo dhan waxaa siiyey qoladaa solidaarityga magaalada belbelaad waxay barnaamij leedahay ballaadhan oo dariiqyada lagu hagaajinayo oo waddooyin qaar loo furayo oo tiriigya loo samaynayo tamarta cadceedda in la gaadhsiiyo 13 tuulo oo cusub inna way socotaa oo hol kolka laga bilaabo ilaa ma garanaysaa goorcabuus ilamaan iyo boki in la gaadhsiiyo yani 10,000 oo qof ayaa ka qayb gasha iminka sanaadiiqda lacagta yar ay galaan la amaahiyo soo celiyaan shaqo ku qabsadaan haween ha u badnaadaan saameyn maxay shicibka ku yeelatay markaan leeyahay waxaan u jeedaa dhaqaalihii maaliyadda aad buu kordhay ilaa intaad talada qabatay waddanka maaliyadda aad buu biirtay miisaaniyadda waata intaa la-eg kor u kac dhaqaalaha waxaa lagu tilmaamaa ilaa 6 iyo badh inay gaadhay haddana dadkii ma wada gaadhin intii in baa la moodaa inay aad u sii kaceen in kalena ay haddayna hoos u dhicin halkii dhaafin kolka sideeba khayraad dadka loogu qaybin shadad baan ku soo qaadayna oo qaybinayn
وحوي قلا دتك أنا دبعت هذا له وإن الله أبوره سي أي هؤلاء وقبسن كران صناديق داير ير أردني وحي أبوره يندتكو إن أي يو شقيستان وإحنا يعني لو سهليو وعلى وحي دتكو لو سهلين كريلا طبعا بنك أو عصبات بدي وحي أبورين وين وحويان إن السيان دتك possibility أول ودكت هاي أو بقول كنا فرن هدو مشاركة وكيرية بان كونت كفري ميجري مجرى ما أنتنا صدق كون كي قاطع ولا فرا محيو سينسا وحي سينسا أود ويسوون وحكو قاعدن كربانكا وإحنا كيدنا كوسا ما يسنكر وحقادس أون ما هو وحلوب هي دتكو إنه كيد كبرته إنه نلوش يسقياسه إنه مستقبل كيسها جاجستو يلو بهي لكن يعني قف والبجيبك على العقل وقريها ما هجد أعرف بس ما شقلا أنت ودبتين كلا دولة أي لا تقال ميسو وحيابها لا تقال من أنت يدنا له دوان وحلو قبت دل كنا مضل شقا أبورك يود دليرت شقا على سينتو ده يدو لغنا قيب قلنا وحيا جارك لولي هاي وحق قلو جرت حقيقة دل كنا إن شق أفكو شقالة ونقضة وصان أنا شقالة أديك ونقضة مركا محا هنان شقالة أنتاس هنان عصب وشقالة أنتاس اللي غاب حيو محا أجر وحوي waxaan isku keenay marka kolkaan eegnay in xogaha istaagtaagayso shaqo abuurkii iyo qof waliba inuu isagu noqdo qofkii dadka shaqaaleynayay kolka jaamacad aad ka soo baxdo marka aad ma garanaysaa ay xirfad leedahay marka aad ra'yi haysato marka aad doonayso inaad noolaato laba ku furande ama inaad shaqo socota aad tiraahdo aan ka qayb galo ama inaad tiraahdo aniguba shaqaan abuuranaya anaa abuuranaya maxaan ku abuuranaya fikradeydii baan ku abuuranaya aqoonteydii baan ku abuuranaya suuq jira iyaan soo arkay oon ku abuuranaya inaan ka faa'iidaysto dee daraasad baan horta samaynaya meeshan kaalayo halka daraasadda ku samaysaan meel la yidhaahdo inaanu abuurno annaga waajibkeenna wey halkani dad kula qabanaya ayaan haynaaye kaalayo abuuro waa kow lacag iyaan u baahanahay buu leeyahay lacagtiisaad u helaysay waa kanoo foon waxaan kuu samaynay sanduuqaasi wuxuu ku weydiin doonaa sida baanankaba maxaad haysaa garanti soo maha waxaan idhi lacag baan soo dhignay bankiga dhexe oo damaanad u noqonaysa walaa aqal baa keen lagu yidhaa walaa qof damiin kuu noqdaa keen la yidhaahdaa waxaa u damiina bank centraalka lacagta yaan u dhigay wixii uu marmarsiiyo ama baahi uu qabay qofka dhalinyarada ahi halkaasi ku dhan yihiin isaga weeyaan dee kolka in uu badda isku tuuro uu dabaasho uu isagu shaqadiisii abuurto qof laba saddex kolba siday baahidiisu tahay inuu shaqo u abuuro sidaa weeye dadkii meeshaa iskugu yimiday wixii dhaartii horena waxaan doonnay inaan abuurno wada hadal inaan abuurno inaan macnayno sidaan imika u sheegay ujeeddada aan ka leenahay in ay entrepriseyaasha waddanku ay kordhaan iyo ay tayadoodu korodho tiradooduna korodho ku korodho yani in ay wax alla wixii yani manaakha meesha jira ama cimilada jirta aan u hagaajino iyo deegaanka jiraba aan u hagaajino oo ay sidaa ku abuuran karaan dharaartii dambana dad wixii meherada iyagu samaystay ee shaqeeya ee sharikada ah inaan u yeedhno
oo aan isqabadsiino dhalinta wixii shahaado haystay ee suuqa shaqada yimiday ee shaqan dooreynaa lahaa intaasina waxay noqotay in ay wada hadlaan iminka waxaan ku jirnaa sidii loo qiimeyni lahaa oo inaan dee dadkii shaqada dhigtay cv-yadana aan eegno intay ahaayeen sharikadihiina inaan weydiino maxaad shaqo u abuurteen dadkaasi imisa ayaa ka baxday tiradani shaqadoonka qoladan kale ee sanduuqana inaan weydiino intee inii keentay yani mashaariic oo iyagu shaqo abuuranaya kolkaasaan dee qiimeyn doonaa halka ay yani wax ka hadday wax ka xun yihiin la sixi doonaa dhaqaalaha ma sii dhexgalle haddaan halka ka sii wadno mudane madaxweyne dhaqaalaheena waa adeeg haddii aanan warshado iyo wax soo saarkii beeruhu la soconna waxaan u malaynayaa waxbaa ka uu dheeliyaya sideebad iskula socodsiinaysa saddexdaas adeegu aad buu u weyn yahay adeegu wuxuu ka bilaabmayaa dariiq wuxuu ka bilaabmayaa shimandafeer wuxuu ka bilaabmayaa boor wuxuu ka bilaabmayaa cable subara iyo telecom waxaasoo dhani waxa weeyaan bunya taxtiya la yidhaahdaayo waa infrastructure wey waxaa loo baahan yahay horta taa haddii adeeg aad doonayso weelkeedaa la samaystaa weelkeedii waxa weeyaan infrastructureka inaan la kordhiyo in laga jawaabo baahida dadweynuhu iyo ama wadannada kale ee u baahan adeegaasi wixii ay wax ku falayeen shalay toole meeshani daraa toole tajura waxaan dhignay dariiq ilaa balxo xuduuddii ethiopia wey ma garan ethiopia waddan 80 malyan iyo ziyaado oo sare u sii socdo waxa u baahan yahay miinooyin badan wuxuu u baahan yahay wadooyin ku xidha wuxuu u baahan yahay sika xadiid oo shumandafeer oo ku xidha shumandafeerkii halkani ilaa Addis Ababa tagayana siduu u dhan yahayba inaan bedelno oo ku cusub oo electric ah inaan lagu bedelo wadada balxo iyaguna Ethiopia xagga waqooyiga tareen inay wada ka keenaan iyo xadiid ka keenaan oo ay xagga tajura la soo galiyo ayaa u qorshaysan halka kolka aan ka tagno waxaa jira baanankii waxaa jira assuranceadii waxaa jira sharikadihii logistiga waxaa jira transportkii baa jira intaasoo dhanina waxay ku jirtaa khadamaadkay ku jirta ama adeega markaan u imaado warshaduhu waxay ku xidhan yihiin waad iska garanaysaa oo kooraan jaban iyo biyo waxay ku xidhan yihiin in dee wax dibad laga soo qaaday halkan iyo halkan laga soo qaaday oo laysku xidhay waa laga samayn karaa laakiin dadkeenna oo yar daraaddeed suuqeenna oo yar daraaddeed ayay keenaysaa in ay wax badan faa'iida aanay keeni karin laakiin wixii waddankeennu leeyahay macdan hadday tahay sibir hadday tahay cusbo hadday tahay warshadaha lagu socodsiiyo oo dhani in aan waddankeenna ka samayno ayaa warshadeyntu tahay warshadda sibirhka tii annagu aan bilownay inaan samayno oo sanadkani 2011 dhammaanaysa waxaa soo garab istaagay sharikad masri ah oo iyaduna oo banki shura uu leeyahay yaa iyaduna mid tahay iyadan 3 jeer ka weyn halkaa agteeda ka samaynaysa waxa aan doonaynaa inaan weynayno cusbada heerkii iminka waxaan joognaa la diri lahaa waktigii la diri lahaa 2011 inaan 4 malyan oo tan oo cusbo ah halkan aan ka dirno si loo diro oo qiimaha adduunka lala simana
laba goor qaadka in laga ilaaliyo kolka ay halkaa casal ka soo baxdo kamyoon haddii lagu soo qaado boorka Djibouti la keeno oo haddana markabkii kale lagu rogo qiimihiiba yaa kordhay waxaa iminka qorshe ah in dikad marse yar oo gubeed dhexdeeda la geliyo oo casal lagaga soo afuufo cusbada oo halkaa maraakiibtu ay gasho ayaa qorshaysan marka maxaa ii xiga marka waxaa ii xiga khayraadkeennii badda dadkeennii bahal yar oo 7 mitira uun ay ku kolkay 2 cisho badda ku maqnaadaan 5 cisho ay seexdaan ayay barteen waxaan imika u keennay dhowr iyo 10 markab oo 11 ilaa 12 mitira oo aan dadweynaha ka leenahay kaalaya oo iibsada amaah ku qaata badda gala shaqo taga in ay badduna keento dhowr kun oo shaqe oo halkaa ka abuuranta meeshan badahani badan la boobay oo kuuriya looga yimaado Thailand looga yimaado Isbaaniya looga yimaado ya haddana anagina aan daawanayno oo waxaan yani dadkeennii uu baddi khayraadkeedii una ka faa'iidaysanaynin waxa weeyaan wax laga xumaado anaga waa isku tuuraynaa badda dadkii waan u keenaynaa waxay lagu kalluumaysanayay ayaga iyo dee kolkaa u taallaa sidii ay khayraadka u soo saari lahaayeen lacag uga dhalin lahaayeen yani kolka halkan $2 iyo badh uu ka joogo kiilooga maxaan ku dhahday kalluunku 8 ilaa $12 ayuu ka joogaa dibadda beeruhu aad bay u adag yihiin haddana dadaalkeeda waan wadnaa maxaa yeelay dhulkeenni cusbo maydhan buu noqday dhulkeenni biyihii baa yaraaday dhulkeenna roobkii baa ku yaraaday